kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada maqaal kooban oo aan kaga hadlayno laacibkii hore ee kooxaha Barcelona, Manchester City iyo xulka qaranka Ivory Coast Yaya toure oo gebi ahaanba soo afjaray dagaalkii xoogganaa ee kala dhexeeyay tababaraha Pep Guardiola isagoo mowjad kale oo nabdoon u fidiyay tababare Pep Guardiola. Laakiin ka hor warbixinta muuqaalka daawade waxaan ka xusuusanayaa in muhiim inoo tahay inaad nagu soo biirto ad like iyo follow aad tiraahdo mahadsanid. laacibkii hore ee qadka dhexe reer Ivory Coast ayaa soo gabagabeeyay waayihiisii wacnaa ee City duruufaha kadib markii uu saxaafadda ka hor canaantay tababarihiisii hore ee Pep. xidigii hore ee kooxda Man City Yaya toure ayaa shaaca ka qaaday inuu u qoray warqad raaligelin ah si uu isugu dayo inuu soo afjaro khilaafka dheer ee kala dhexeeya Pep Guardiola kadib hadalkii uu ka sheegay ee ku saabsanaa sida uu tababaraha ula dhaqmo xidigaha kasoo jeeda qaaradda madow ee Afrika. toure ayaa ka tagay garoonka Etihad isagoo ku jira xaalad liidata kadib markii uu City u ciyaaray 8 xilli ciyaareed intii u dhaxaysay 2010-2018. waraysigaasi waxa uu ahaa qaladkiigii weynaa. toure ayaa u sheegay Daily Mail isaga oo tixraacaya sheekadiisii sumcad xumada lahayd oo uu siiyay France Football. markaad kalsoonidaada siiso codkaaga qof way qalloocin karaan. waxaan ka warqabay in shaqaalaha qaar aysan ku faraxsaneen. waxaan u diray email warqad si aan isugu dayo in aan ula xiriiro dad muhiim ah oo halkaasi jooga si aan raaligelin ugu bixiyo oo aan u idhaahdo waan qaawiyay kooxda, laakiin wax jawaab celin ah kamaanan helin. waxaan doonayaa nabad, ma doonayo mar walba tan. jacaylka taageerayaasha, jacaylka kooxda mararka qaar waa in wax lagu xaliyo sida saxda ah. waxaan la xiriiray qaar ka mid ah dadka halkaasi jooga. isaga Guardiola wuxuu ku adkeysanayaa in uusan wax dhibaato ah ku qabin ciyaartooyda madow sababtoo ah isagu waa caqli badan yahay, ayuu yiri toure. laakiin markii aad ogaato inuu dhib ku qabo Afrikaan meel kastoo uu aado, waxaan su'aalayaa nafteyda weligiis ma qiran doono. laakiin maalinta uu safan doono kooxdiisa ugu fiican ee riyada, markii aan ku arko 5 ciyaartooy oo kasoo jeeda qaaradda Afrika, waxaan u hadayn doonaa in uu yahay mid qalbi furan, cunsuriyad aanan aqoonin, ayuu yiri Yaya toure oo ka hadlayay tababarihiisii hore Pep Guardiola isagoo oo fariin codsi ah oo cafis ah kaga dalbaday Pep. haddaba daawade, adiga ahaan inta aad ka aragtay Pep Guardiola iyo xirfadii sareyse ee Yaya Etihad uu ku haystay iyo wixii dhaxmaray, maxay kula muuqdeen nacayb madow ah uu qabo xidigaha Afrika mise xirfad ahaantooda ayuunan jeclaysanin? qaybta commentiga ayaad inugu reebi kartaa. mahadsanid.